asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan walaalaha family waa mar kale muuqaal horle. haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dabcan musalsalka walaalaha xalqadiisa 6aad faaladeeda oo dhammaystiran. waa tahay daawada intaana muuqaal gudagelin fadlan daawada muuqaalka like noo saar, sidoo kale haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe noo saar. waa mahadsantii taa ka bacdi ee soo dhawow. haddaba xalqada ayaa ka bilaabanaysa halkii ay nagaga dhamaatay isla xalqadii tan ka horreysay ee 59aad kadib markii Axmed Ilmaaz loo sheegay Cumar inuu yahay wiilkiisa. Cumarna uu soo galay isla markaana Cumar waxa halkan ku ogaanaynaa Cumar in uusan wax maqal, isla markaana Seefkii ayuu la hadlayaa, wuxuuna ku dhayaa habareer Seefkii aniga cunugaas wax kuma sameyn, ma taabsan wax waliba asaga ay isu geystay. waan ku baryaa ninkan wuxuu ku sheegay ma garanayay, aamin waxna kuma sameyn. isla markaana maamulaha dugsiga ee Buraak ayaa soo galay, isla markaana waa uu bixin doonaa. haddaba Cumar marka la soo bixiyay ka bacdi Cumar waxay is arkayaan Saarbi, isla markaana dagaal kuuli waa uu sii socdo. Cumar Saarbi uu xanaaqsan yahay, sidoo kale Duruka ayaa la hadlaya beerka oo ku dhahaya maxaa ka qaldan. isla markaana Cumar ayaa beerka la hadlaya, wuxuu ku dhahayaa qof caadiyan ku mooday laakiin se sharaf la waxun ayaa tahay, tan waad ku qaldan tahay laakiin se ballan waad ka qoomay doontaa, kaliya waa u hanjabayay. haddaba muuqaalka xigana waxaa arkaynaa Axmed Ilmaaz iyo hooyadiisa Seefkii oo wada hadlaya, isla markaana wuxuu dhahayaa aniga arrinkan se la iga qariyay 18 sano, arrinkan sidee la iga qariyay. isla markaana way u sharaxaysaa, waxay ku dhahaysaa Cumar markii uurka uu ku jiray adiga waxaad wadatay sheewaal, gurkiina ayaadna go'aansanayseen, isla markaana sidaasay aad ku tagtay ayay ahayd. markaas kadibna Suuzaan ilmihii waan ka qaadnay oo meel ayaan geynay ayay ahayd. Suuzaan xitaa ilmaha maysan soo karin oo faqrigaas ayuu ku soo karay ilmaha ayay ahayd. waan ku baryaa yarkan wax walba u samee, dugsigan ha ka erin, waa wiilkaaga. markaas ka bacdi buu dhahayaa waa yihiin aniga ma in qof kale ayaa og arrinkan, iyaduna waxay dhahaysaa Ismaaciil ayaa og arrinkan. markaas ka bacdi Axmed Ilmaaz soo baxaya, caruurtiisa ayuu ku dhahayaa ina Mariya, laakiin Saar baa dhahayaa aaba maxaa qaldan, sharaf laawaan xunka ilaa isku ciqaabtiisa uusan marin ma tageeno. markaas kadib Axmed Ilmaaz ayaa dhahaya Cumar oo caruurteeda ka fogaa hanu u soo dhawaan. Axmed Ilmaazna caruurtiisa sidaasi ayuu ku kaxaysanayaa. Cumar laga meerin iskuulka, isla markaana Seefkii ayay dhammaantoodaba hab siinayaan. muuqaalka xigeen waxaa arkaynaa ninkii beerka oo soo baxay, Duruka ayaa kasoo dabaxay, wuxuu ku dhahayaa caqligaaga ayaad weyday. isla markaana beerka wuxuu dhahayaa aniga caqliga waa sideedii, waxbana isma bedelin, saaxiibtinimadeena way dhamaatay. Duruka ayaa dhahayaa marba haddii saaxiibtinimadeena dhimatay, mushkiladda kala dhaxaysa maxay tahay Asiye, Cumar iyo sidoo kale IBK. markaas ka bacdi ayuu dhahayaa adiga dartaada ama adiga sababtaada, sababtoo dhankaaga ay kasoo jeedaan. markaas kadib IBK ayaa imanaysa, way u hanjabaysaa beerkii. ugu dambeyntiin halkaas ay ku kala tagayaan, go-aan cad ayna kala qaadanayaan in ay labadooda saa ugu kala dhamaatay. IBK wuxuu sheegaysaa hadda kadib in aysan sii wada soconin. muuqaalka xigana qoftii Leela waxay la soo hadlaysaa Asiye, waxayna u sheegaysaa Tuulga waxa ku dhacay, sidoo kale inuu dhiig la'aan yahay. Cumar ayaa dhahayaa aniga ayaa ah ee balaas ayuu dhahayaa. isla markaana Asiye iyo Cumar sidoo dhaqsiya badan waxay u aadayaan dhankaas iyo Tuulga. Cumar wuxuu dhiig u shubi doonaa, markaan Tuulga ayuu dhiig u shubi doonaa. haddaba dhakhtarku waxa uu sheegayaa inuu Tuulga fiican yahay, isla markaana wax dhibaato soo gaarin. sidoo kale booliiska ay iman doona, wareysi ka qaadan doona Tuulga sida uu dhaawac ku soo gaadhay. laakiinse Tuulga aabihiisa ayaa arrinka xalinaya, isagoo dhahaya anagoo wada murmaynaya wax dhacay Tuulga inuu dib ama gadaal u sooqo, isla markaana muraayada uu sidaasi kaga dhaxbaxo oo sidaasi dhaawac ku soo gaaro. haddaba muuqaalka xigay ninkii Axmed Ilmaaz sidoo u orday wuxuu imanayaa qoftii Suuzaan, isla markaana wuxuu ku dhahayaa maxaad igu sheegi weydeen wiil leeyahay. iyaduna waxay dhahaysaa adiga ayaaba ka orday ayay ahayd, aniga xitaa ilmaha waa laga qaaday oo aabaha iyo hooyada ayaga qaaday ayay ahayd. markaas ka bacdi Axmed Ilmaaz ayaa hadalkiisa soo koobay, wuxuu dhahayaa Suuzaan aniga ma doonaa cunugan inuu ogaado in aabbo sidoo kale ma doonayay lacagteeda inuu soo fargasho. Suuzaan waxay dhahaysaa Cumar qofkaad ma dhinsid ma lacag iyo waxaasna kama helo, aniga xitaa waa aqbali waayay inaan hooyadiisa ahay markii hore, ilaa ay waqti xaadirkana muusan aqbalin. xalay muyn habeen hore bas ayaan ka maqlayaa hooyo ayay dhahaysaa. markaas ka bacdi Axmed Ilmaaz ma doonayo Cumar iyo arrimahan, bal ka warrama asxaabteena, anaga runtii arrinkan ma ku fikirin bay ahayd. Axmed Ilmaaz ma doonayo lacagtiisa in lagu ciriiriyo ama dhaxalka uu hooyadii ka qaadan doono in lagu ciriiriyo ma doonayo. muuqaalka xigana qoftii Suuzaan ugu horeynta Axmed Ilmaaz ayaa u soo sheegaya in Axmed Ilmaaz ayaa Suuzaan ku oranaya markii wada joogeen Cumar
hooyadii ayuu saacado ka xaday markaan keen ku dhahayn sida uu dhaqsiyaha badan lacagtii waa uu keenay meeluu ka soo xadayna ma garanayay. Susan waxay ogaanaysaa arrimaha dhan inuu Caakif ka dambeeyo isla markiina Caakif ay u imanaysaa waxay ku dhahaysaa cunugaas lacagtiisii waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u celisaa ama Cumar lacagtiisii waqti xaadirkan waxaan rabaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad u celisid. Muuqaalka xigan waxaan wada arkaynaa qoftii Seefgi ahayd iyo Axmed Ilmaasi Sheewaali labada carruur wada cashaynaya. Seefgi ayaa dhahaysa Sarbi Yasmin ay ku dhahaysaa yacni waalidkiina ayaan kala hadlayaa arrin muhiim ah haddaad cuntadiina dhammaysateen fadlan gurigiina iska kala gaara ama qolalkiina. Markaas ka bacdi waxay dhahaysaa qoftii Seefgi lagu magacaabo mawduuca guda galno ma doonaa inaan idin dhibo ama ma doonaa inaan idin qaso. Mawduuca kulli waad ogtahay aniga waan xanuunsanayaa markaan kadibna da ayaan noqdo waan sii gaboobayaa. Waxaan rabaa ayay dhahaysaa in maalkayga aan adiga Cumar idin kala qaybiyo inayna adiga kugu qoro inaan Cumar ku qoray dhahaysaa. Sheewaal ayaa yaabiso waxay ku dhahaysaa carruurtanadana. Markaas ka bacdi Seefgi ayaa dhahaysa gabadheed waxba ka cabsanin Axmed ayaan dhanka carruurtaada Axmed ayaan in badan ku qoray ayay dhahaysa Seefgi. Sidoo kale waxaa xogaa yar kasoo boodnaan yahay Sheewaal way ogtahay in Cumar iyo Axmed Ilmaasi is dhaleen ugu dambeyntiina way aqbashay oo Axmed Ilmaasi uu ka dhadhiciyay. Muuqaalka xigan waxaan arkaynaa Dooruko aabihiisa oo imanaan la yaaba ayaa meeshan uu ku nool yahay gurigiisa ayuuna sidaasi ugu kaxaynayaa ayay ahayd. Muuqaalka xigan waxaan arkaynaa qoftii Sheewaal ahayd oo Axmed Ilmaasi usoo bandhigaysa arrinkaas oo ah inay hooyadooda siiyaan daawadaasoo xogaa maskaxda ka dhimaysa isla markaana loo malaynayo inay caqliga beeshay. Markaas kadibna Axmed Ilmaasi ugu horeyntii ma aqbalay wuxuu ku dhahay ma xartayna hooyadeeda sameeyno arrinkaana mar dambe soo hadal qaadin waa waalata ayuu ku dhihi rabaa hooyadeedana ma sameynaya aniga ayuu Axmed Ilmaasi dhahay waa marka u horeysa. Muuqaalka xigan waxaan arkaynaa Tolga oo u imanayso qoftii IBK lagu magacaabayay isla markaana ay u keenayso hadda ka hor tufaax waa waxay u keentay isaga hadda ka hor u keenay maray isbitaal ku jirtay season 2 dhamaadkeeda xalqadii 56 ayaan filayaa. Marka waxay ku dhahaysaa waa tadiintaadii annagu ku keenay laakiinse waxaa dhacaysa Sarbi iyo Yasmin oo dhanka WhatsApp-ka groupka ka soo eegay in Tolga dhaawac soo gaaray in isbitaalka soo maraan laakiinse ma soo gali doonaan laakiinse kor ayay ka eegayaan. Waxayna waqtigaas u socdeen ninkii beerka lagu magacaabayay ay hotel kula ballansanaayeen oo u socdeen. Haddaba dhanka kale qoftii nabahada ay xoogeenaysa Caakif inuu joogay mar kale ayay guriga ka buranaysaa waxaana ku dhahaysaa iskaga tag meeshan. Muuqaalka kalena ninkii Sarbi lagu magacaabayay iyo beerkii sidoo kale Yasmin nafta ayay u keenayaan Cumar wayna qasayaan runtii aad ayayna u dhibayaan. Sarbina wuxuu Cumar ku kalifay inuu meelo badan nadiifiyo xitaa saaxi loo keenay ayuu daadinayaa muddo ku dhow 2 jeer ayuu daadinayaa saaxaas. Muuqaalka xigan waxaa arkaynaa Axmed Ilmaasi oo hooyadiisa wada hadlaaya. Haddaba Seefgi waxay ku dhahaysaa aniga Cumar maalkii oo kaliya ma siinayay xitaa waxaan rabaa gurigan hadda ku noolsiinaa sida dhaqsiyaha badan ka baxdiin isla markaana Cumar iyo walaalihiisa ay soo degaan. Waxayna ku dhahaysaa guryo badan ayaan leenahay kuwa mid kamid ah ayaa degaysiin. Axmed Ilmaasi isagoo markii hore la yaaban arrinkaas ayuu arrinkan sii maqlayaa. Qoftii Susan iyo Axmed Ilmaasi waxay ku dhahaysaa carruurtaada waxay qasayaan Cumar shaqadiisa inay ka buriyaan oo isku dayayaan ama inuu qalad galo ee kaale meesha ka kaxayso. Axmed Ilmaasi wuxuu dhahay hotelka oo kaliya isheeg sidaas ayuu ku soo bixi doonaa si uu Sarbi u soo kaxeeyo Cumar shaqada ma laga burin. Sidoo kale beerkii cashada muusan dhammaysanaya ahayd markuu cabay sharaabkii uu dalbaday waa iskaga tagayaa meesha. Cumar ma doonayo beerkii inuu sidaan u sii dhibo waxaanu hadda sameynayaan wuu ka qoomeynayaa. waxay la tahay Cumar in markaan iscafin doonaan laakiinse Cumar waxay la tahay beerkii inuu la dagaalami doono. Waa tahay faaladan ka wadano muuqaalada xiga ee arrimahaas kaga sheekeyn doonaa. Haddaba nabaad markii Caakif furiso Caakif wuxuu isku day doonaa daarada saxo laakiin ugu dambeyntii wuxuu go'aansanayaa inuu iskaga tago oo meeshiisii bal iskaga laabto. Sidoo kale muuqaalka xiga waxaan arkaynaa subaxdii Caakif uu soo iibiyay dhulkii uu haystay isla markaana Cumar iyo lacagtiisa u soo celinayaa. lacagtii goosgooskan ku arkaynay way runtii lacagta waxaan malinay Seefgi keentay laakiin Caakif ta kul ayaa keenay sidoo kale lacagtan waxa leh qoftii Leela ahayd ayaa la Cumar wuxuu ku fikirayaa in uu Leela u geeyo lacagtaasi ayuu ku fikirayaa ay ahayd. waa tahay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Sheewaal iyo Axmed Ilmaasi oo wada hadlaaya isla markaana Sheewaal waxay u sharaxaysaa daawadii waxayna dhahaysaa daawo ayaan hayaa daawadan sidoo kale hooyadaada waxay ka dhigaysaa saan hore kugu sheegayba in caqligeeda uusan joogin isla markaana markii ay qadiyada soo hadal qaado iyo Cumar marka u saxeexayso waxaan dhahaynaa islaantan maskaxdeeda ma joogto laakiin si nasiib darro xilliga Seefgi way maqlaysay ayadoo oynaysa ayayna meesha iskaga degaysaa aadna uga qoomeynaysa waxay sameey rabtay isla markaana sidoo kale waxay ogaanaysaa wiilkeeda in uu rabo inuu hooyadiisa saa ku sameeyo yacni qofka daawadaas runtii waa sun oo kale ayaa lagu tilmaami karaa.
arrinkaasna aad ay uga naxaysaa. Sidoo kale muuqaalka xig waxaan arkaynaa Toolga iyo walaashiisa wada hadlaaya, waxayna ku dhaha walaalkiis Toolga, yacni Toolga iyo walaashiis waa Leyla qoftaasi. Toolga ayaana dhahaya Cumar maxaa saan oo dhan ugu difaacaysaa? Sidoo kale Cumarka ayuu yahay haddan baa isbarateen maxaa lacagtaas u siisay? Isla markaana waxay dhahaysaa yani waan ka naxay oo keliya, aniga waxaan isdhahay aabihiin lacagta kulli xukma falayeen si Cumar. Markaas kadib ayaa wuxuu dhahayaa Toolga ayaa dhahaya Cumar ma dareenaya waa haysaa, iyadana way kasoo horjeesanaysaa. Waxay dhahaysaa may waad ogtahay Cumar jacayl ayuu leeyahay. asaguna wuxuu ku dhahayaa jacayl buu leeyahay, waxaa ka tagay hadda ma waxba dareemaysaa ama Cumar yacni xoogaa dareena maad u haysaa? ayadan u jawaabin oo dhala cadaynaysa ninkii Cumar ay haba degdeg ku imanaya, isla markaana lacagta ayuu siinaya. sidoo kale waxa Toolga ku dhacay ka raali galinaya maadaama asaga sabab uu ahaa arrinkaas oo dhan. muuqaalka xigana waxaan arkaynaa qoftii Suuzaan ahayd iyo sidoo kale Caakif Fatakuul oo wada quracanaya. Suuzaan laakiinse gurigeeda mayso ku soo celin, laakiin Caakif waxa uu imaaday inuu u sheego Cumar inuu lacagtii u celiyay. isla markaana way wada quracanayaan. quraacdoodana hadaladooda waxaa ka mid ah inuu Caakif dhaho Suuzaan runtii wada jeceshay sababtoo ah 4 bilood iskamaada kay furin. taasna waxaa cadaynaysaa inay jeceshay. Suuzaan waxay ku dhahaysaa wallahi masaasa aniga ku jecelahay sax. waxay ku dhahaysaa war maxkamadda 5 jeer iyo 7 jeer wax ka badan baan kaaga wacmaaday markaas aan soo ka soo furaa. isla markaana waxay ku dhahaysaa haddii maalintaas aadan igeynin xabsiga ama maalintaas aad soo noqonin xabsiga tago, hadda arooskan ayaan iska wadan lahayn, si nafis ayaan isu qabi lahayn. haddii aad ku mashquulsan tahay xabsigaas waxa uu yahay hadda ku hor Caakif Fatakuul shirkadiisa wuxuu ku qoray Suuzaan, isla markaana deymihii lagu lahaa maadaama bixin waayey. qoftii Suuzaan ee xabsiga ayaa loo taxaabay ayay ahayd Suuzaan. arrinka aad kuuga xanaajiyey waa arrinkaasi ayuu ahaa, oo arrinka kale Rasuul Oscar kama xanaaqsano. haddaba Cumar markii uu siiyo Leyla, markii uu siiyo lacagteeda waa uu iska soo bixi doonaa. muuqaalka xigana waxaan arkaynaa beerkii ay bika wada hadlaaya, isla markaana ay bika ayaa ku dhahaysa waad weli ilaa hadda waad xanuunsanaysaa ama yacni macaad qabtide maskaxdaada soo laabato. beerkina uu hadlaya wuxuu dhahayaa adiga ilaa runtii waxaad lahayd sabab adigaga hadhid, waadna heshay runtii sabab aan ku kala haro. xali toolese maxaad ka qabanaysay Toolga agtiisa? isla markaana ay bika waxay dhahaysaa war Toolga shil ayuu gala ayay ahayd. yacni shil waxa laga yaabaa in u fahamtid kii gaadhiga, laakiin ayaga shil waxay u aqaanaan ama yacni dhibaato oo kale ayaan ugu naqaanaa. waxay u aqaanaan qofka markuu dhaawac u soo gaadho. marka shil ma ahan kii gaadhiga. Toolga waxa soo gaadho waan wada garanaynaa. marka waxay dhahaysaa dhaawac ayaa Toolga soo gaadhay, sidaa darteed aan ugu tagay isbitaalka. isagana wuxuu dhahayaa kulley waxaan idin rajaynayaa farxad adiga iyo qofka aad rabtid in aad garabkiisa taagnaatid. sidoo kale Toolga maxaad isbitaalka kaga doontay? ma waxaad usoo sheegi rabtay in aan yacni kala haray eed usoo sheegi rabtay soo ma aha? abikeen waxay ku dhahaysaa waa xanuunsanaysaa, beerkina oo iskaga dhaqaaqaya. sidoo kale muuqaalka xiga ninkii lagu magacaabayo Orhan Sheegul ayuu kaxaynaya, waxuuna geenayaa dhankaasi isbitaalka si uu u soo ogaado xaaladda caafimaad ee ilmihiisa yar ee uurka ku jira. 7 bilood ayaan filayaa 7 bilood. muuqaalka xigana waxaan arkaynaa ninkii Cumar ahaa uu imanaya Suuse. markuu u yimaada kadib Suuse waa uu raali galinaya, wuxuuna ku dhahayaa Suuse waxaan rabaa inaan kula soo hadlo. sidoo kale dhibaatooyin kale ayaa yara qabsaday. wuxuu ku dhahayaa runtii adigan kaaga raali gelinaya, arrinkaas iga raali noqo wixii dhacay. ayaduna waxay dhahaysaa iga raali noqo maxay tahay? gabadh aan aniga necba ayaa la soo casheysay. asagana waa u sharaxayaa, wuxuuna ku dhahayaa aniga sidaas ma doonayn inay wax walba u dhacaan. habeenkii aad casadayga diiday iga tagtay kadib tagsi ayaan waayay badan waa sugaa. eedana qasabay gaarigay soo hordhigtay, yacni waan igu qasabtay inaan gaarigeeda fuulo. markaas kadib ayadoo gurigayga sii geerabtay waxaa dhacday maqaaxin ay aragto tirado waan gaajaysanahay maad isugi masoodila cashayn. anna waxaan gabadha ugu jawaaban karan waayey, isla markiina waan iska wada cunay, gurigaygayna sidaasi u geysay. markaas kadib waxay ku dhahaysaa waaya arrinkaas muu dhib yaray? isaguna wuxuu dhahay haa waa iska basiid. waxay ku dhahaysaa war qof aan necabahay ayaad la soo cashaysay, maalmahan dhanna la joogtay ayay ahayd. sidoo kale waxaad been ii sheegtay gacanteeda inay mara ku siisay. adiga Leyla maxaa idinka dhexeeya? asaguna wuxuu dhahayaa Leyla waxaan iga dhexeeya ballan waayo maalin dambana cunto lama cunaya ama agteeda kama dhawaanayay, sidoo kale kaama xanaajinayay. isla markiina Suuse way cafinaysaa. halkaasna waxaan ku ogaanaynaa Suuse in yacni xoogaa khaa'inimo cusub ay soo wadatay. insha Allah gadaal ayaan ka fahmaynaa. haddaba Suuse sidaas ayay ku cafinaysaa ninkan lagu magacaabo Cumar
cumar wuxuu dhahaya hadda sidaan miyaan ku heshiinay hab ayuuna siin doonaa wuxuuna dhahaya waayahee ma sii soconnaa ayadana waxay dhahaysaa gabdhahan ayaan xoogaa la yar hadlayay muuqaalka xigan waxaa arkaynaa astooro wada ciyaaraya ama asiya dooruukooda ciyaaraya ciyaartii saaxda islamarkaana waxay rabeen inay kala badiyaan markaas kadib dooruukaa soo saaraya warqad inuu uu moodayo inuu asaga qoray asiyana ku qaslaasa waxay dhahaysaa warqadan ma abaha kuu soo qoray isaguna wuxuu dhahayaa may aniga fikradahayga waaye ariya jacayl waaye ayuu uga bilaabaya markaas kadib xoog ayuu u qaslaasa waxaa ku dhahaysaa bal xarfaha horeeya akhri wuxuuna arkaya xarfaha horeeya inay ku qoran tahay nebuus ama nebhaad cagfayaana qora ay ahayd markaas kadib runtii weli waa iska faraxsan kuwan maalmihii u dambeysana iskuma dhicinay ahayd weli seasonkan soo bilowday asiya dooruug iskuma dhicin insha allah iskuma dhici doonaan waatay muuqaalka xigan waxaa arkaynaa nabhaad oo nin isdagaalayaan islamarkaana ninkaas sidaan idiin soo koobna axmed ilmaas ayaa ka celin doonaa muuqaalka xigan waxaa arkaynaa shinguuliyo orhaan oo jooga isbitaalka ilmahoodina soo egtay sidaas ayaan isbitaalka kaga iman doonaan halka muuqaalka xigan arkayno suusee u imanaysa saarbi islamarkaana waxay rabataa inay la ciyaarto ciyaartii saxda waxayna ku dhahaysaa xooga inaad caawiso ay rabaa sidoo kale waxay uga wacaysaa casho ayay ku wacaysaa waxay dhahaysaa caawinaysa la soo cashayna rabnaa sidoo kale waxay rabtaa in cumar ka masaysiisa ayaan filayaa waa ka arrinkan idiin sheegayay cumar si sahla qoftaa maysan ula heshiinin waxay rabtaa inay kaga argudata ayay rabtaa saarbe ayana markaan la socotaa waa tahay sidoo kale ciyaarta ayay ka badinaysaa maadaama ninkan ay erayo la yaab la u sheegay soo ku leedahay waxaa rabaa inaan cashayno halka ayaan ka baxaynaa halka halkaan ka baxayna maadaama ku leedahay ninkan saarbe lagu magacaabo sidaasi ayay uga badinaysaa ayay ahayd ciyaarta muuqaalka xigan waxaa arkaynaa qoftii nabahad ahayd oo suusan ku leh aniga waan ku guuleystay inaan iibsada meeshaan hadda kadibna shaqadaada aniga ayaa maamulo ka waxay la tahay cumar mar dambe lama dhimi doono maadaama nabhad meesha iibsatay oo nabhad ay meesha leedahay cumar si yaroo dhibyar ay u shaqaysan doonaa ayay la tahay sidaan filaya mar dambena ninkii saarbi lagu magacaabay ma dhibayo muuqaalka xigana qoftii goonu lahaysa u socotay waxay arkaysaa gaarigeedii iyo gaariga orhaano agyaala shanguul gurigeeda wayna dhawaaqaysaa guriga ayana kasoo babaadhaysaa ugu dambeyntii way sugaysaa intay imanayaan orhaan iyo shanguul oo imanayaan haddaan hadalka idiin soo koobno kulley arrimahan muuqaalada xiga ayaan idiin fasiraynaaye goonuul waxay ku adkaysanaysaa in ay ninkan warqadeeda ka qaadato ku tiraahdo waxaan rabaa warqadayda soo kuma odhan shanguul agteeda kuguma arkaayo shanguul oo wanaaxaysa waxay dhahaysaa orhaan niyadda ay ka dhahaysaa ayaan filaya laakiin lama huba aniga fikirkayga kaliya waaye orhaankii miskiinka islaantan masaasi u cadibta camal laakiin ma hubiyaa inay niyadda xitaa saa ka dhahayso waa tahay goonuul ugu dambeyntii waxay dalbanaysaa furin ayay dalbanaysaa ma kula tahay inay isfuri doonaan kolley waan ogaan doonaa waa tahay sidoo kale faraantigii ayay siinaysaa haddaba sidoo kale muuqaalka xig waxaan arkaynaa axmed ilmaasi iyo nabhad inay mobilada u kala dalbameen markii uu ninka ka celinayay markaas kadib axmed ilmaasi soo wacayay wuxuu ku dhahayaa xagga hoosta igu imo meel fog ma joogiy mobilka iyakan si aadna kaaga kuu siiya iyaduna waxay dhahaysaa waayo wax dhibaato maarkan kuu soo socdaa markaas kadibna waxay isla taagayeen waqtigaas waxay isla taagnaayeen suusan nabhadna suusan ay ku dhahaysaa nin ayaan arkay si aad isoo qurux badan sidoo kale wuu iska sinaa adayuniya catabi ay dhahaysaa mobilkiisaan u geenayay noo imo si aad dalabka nooga qaadid aad noo keentid wax markaas kabacdi waxay dhahaysaa suusan waa yahay oraad sii tag annaga ka hadoo imaan suusan markay timaado kadib way yaabaysaa maadaama ninku uuba yahay axmed ilmaas sidoo kale nabhadna ay aad ninkan uga heshay nabhad sidoo kale ninkan qofku yahay ma ogo iyo inay suwaal is qabaan arrimahaas oo dhan ma ogaba muuqaalka xigan waxaa arkaynaa saarbi iyo suuse oo wada cashaynaya islamarkaana sawir ayay galayaan sawirkaasna dhanka suuse ee istoriga ayaa lagu faafin doonaa ama la gelin doonaa oo istoriga ayaa lagu baahin doonaa muuqaalka xigana waxaa arkaynaa axmed ilmaas iyo sheewaal oo wada hadlaya islamarkaana sheewaal waxay u maranaysaa inay wadaadii siisay lacagta laakiinse ayaga oo iska wada hadlayo hadalkoodii iska watay waxaa dhacaysa inuu ninka ismaaciila u imaado islamarkaana warqad siiyo una ku dhaho hooyadaada maal waliba way leedahay adiga ay kaaga tagtay adiga ayna kuu saxeexday axmed ilmaasna waa sidii rabo uu yaabaya wuuna farxaya wuxuu dhahayaa talow hooyaday maxay waxaanoo maal ooga tagtay sidoo kale sheewaal ayaa farxaysa laakiinse waxay la tahay islaantan inay qaasamaysay kulley muuqaalada xigan arrimahan kasoo hadli doonaaye sababtoo ah islaantan waxay ahayd cumar xitaa inay lacagta wax ka siiso laakiinse waxay la tahay in qayb ka mid lacagta unay ku wareejisay qaybtii kale ay hayso haddaba sidoo kale ismaaciil wuxuu ku dhahayaa hooyadaada waxay ugu tiri ma doonayo wejigaaga mar dambe inaa arko yacni seefkii ma doonaysa axmed ilmaas wejigiisa inay mar dambe aragto wayna iskaga tagtay ahayd gurigan dhan oo iskaga tagtay axmed ilmaas oo yaabanaya waxaa keenaa muuqaalka xiga qoftii aasiye ahayd oo daawanaysa istoriga suuse islamarkaana waxaa arkaysaa sawirkii suuse saarba ay wada galeen emeel ayaana dhahaysa qoftan walaal suuse ma aha markaas kadib aasidan waxay dhahaysaa hawa suuse emeel ayaa dhahaysa
wiilka isla taagan waayo asiyan waxay dhahaysaa waa yar ma aragtay iskuulka nala dhigtaa marka kadib Cumar ayaa ka qaadaya wuxuu ku dhahay mobilkii dhibaan eega asiyan wuxuu ku dhaysaa armaad xoogaa dhibsataa isaguna wuxuu dhahayaa maxaa dhibsan caadi waaye dhib markaas kadib ayaa wuxuu soo xasuusanaya suusiye markii ay ku lahayd adiga dhibaato uma aragtid la cuntaynta la cuntaynaysid Leyla anigu Leyla nacab ereygaas ayuu soo xasuusanaya halkaasna waxaan uga jeedi doonaa inuu maseera ay la tahay asagoo xanaaqsanaya waxa dhacaysa in albaabka lagu soo karkaraaco albaabku markuu ka furan waxaan ogaanaynaa inay tahay qoftii seefkiyahayd ama wadaadii seefkiyahayd waxayna ku dhahaysaa guri kale iima harin ee boos ma idinka helayaa kulley maanta waxay leetahay inaan xalqada soo koobnay sababtoo maanta xalqada waa i qorayd haddaba daawad waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalka daawatay la soco gooskooska sidoo kale macluumaadada xiga toddobaadkan waxaan isku day doonaa in muuqaalka xalqada soo socota maalin walbaba 3 macluumaad aan idinka siino ama 3 fiideo aan idinka siino insha Allah tacaala muuqaalka like saar mar kale daawada sidoo kale dad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar waanigu saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tagayaa sidii mar waliba caadada noo ahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh